joojinayo qodobka koowaad loo codeeyo gudoomiye waar ma joojinayo ayade marwada taranta ma joojinayo xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa fadhigiisa oo loo balansanay inay ku ansixiyaan xeerka doorashooyinka oo ka dhashay buuq iyo sawaxan kadib markii gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa la sheegay in xeerkaasi aan laga doodaynin isla markaasina duuduub lagu ansixinayo xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa arrinkaasi ka biyadiiday iyaguna halkaasi uu ka dhashay buuq iyo sawaxan ay xildhibaanadu kaga soo horjeedaan hadalka gudoomiye ku xigeenka ee ah in xeerkani duuduub lagu ansixiyo haddaba fadhigiisa xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland isugu yimaadeen ayaa waxa u dhacay sidani qodobka koowaad loo codeeyo gudoomiye waar ma joojinayo ayade marwada taranta ma joojinayo haddii soo jeedini ka dhalato fadhiga waxaa xeeroosaadkiina farayaa inaynu cod gelino soo jeedintaas ayade marwada taranta ma joojinayo xeerkani waa xeer muhiima waana ansixinaynaa wax dhibaato ay ma jiraan dee xeer maalin inta intii laga dooday waa ogeydeenoo saxaafadda way joogto waxa weeye 10 casho in ku dhowdhow baa laga doodayay marka inaannu wixii aannu sekadmanka helay taageerada helay qodobadii taageerada helay aannu doonayna inaan wax ka bedelo inay ku jiraan un baannu doonayna inaannu hubinno wax kale oo dhibaato ay ma jiraan xeerkani waa xeer muhiima waana xeerka doorashooyinka lagu maamulayo dhammaantoodba marka in la ansixiyo waa waajib laakiin in la hubiyo oo aanu khaladaad yeelan un baannu doonayna iyo wixii aannu awalba salugnay in meesha laga saaro marka tii bay yidhaahdeen dee maxay ahaytoy maantaynu ansixinaynaa waxa weeye maantaana loo qaybiyey hal qodob xitaa maanaan eegin qodob baana lagu ansixinayaa buu yidhi laakiin qodobka had iyo goor way isku qaadaan oo inta yidhahdaan qodobka koowaad ilaa ka 10aad ama ka 5aad ilaa ka 8aad bay yidhaahdaan taasina dee wax lagaga bogan karo maaha haddii maanta qodob loo akhriyo oo farfarqad loo akhriyona yaa xitaa dhowr casho soconaya markay sidaa tahay annagu waxaanu soo jeedin in maxay tahay xeerkan la soo akhriyo laga soo bogto dabeedna la ansixiyo tii un baa shirgudoonku diiday tii un baa maxay tahay laakiin markii dambe maxay ahayd dee golihii uu diiday dee gudoomiyuhu waa kii cod u qaaday inkastoo annagu aanu jeclayn aan codba u qaadin sidii dhici jirtay inuu yahay soo akhriyo haddana hadda dee codkuun baa lagu kala baxayo annagu sidaanu doonaynay bay dee u dhacday
marka waa soo akhriyayna dhibaato kalena ma jirto. Cabdijabbaar Maxamed Xuseen telefishinka Ariel Hargeysa oo kulli faaqan xeerkan in la keeno milkiskii hadal qoraalkii golaha wakiilada iyo doodiisii lama soo bandhigin taasina waxay gelinaysaa daafurnaan la'aan golayaasha in codkoodii la tixgeliyey oo ay iska dhex arkaan barsijarkii golaha wakiilada ma waafaqsana mugdi kasta oo ku jirana goluhu isagaan ceeb lahayn wuxuu eegayaa inuu maxaanku dhahaa milkiskiisi iyo doodiisii uu siduu u garab dhigo habka qoraalkee la isku soo guray doodiisii inuu ka dhex arko oo si qoto dheer xeerkan looga dooday marka labaad xeerkani 150 qodob buu ka kooban yahay si loo hubiyo in hawshaa la tixgeliyey doodii golaha wakiilada ee tamarta badan ku baxday waxaa loo baahan yahay in loo helo muddadii lagu akhriyi lahaa si wixii saxabtira loogu samayn lahaa shirguddoonka golaha wakiiladu saaka hab jujuuba ayuu doonay inuu cod u geliyo oo barbarbarsan barsijarkii golaha wakiilada ayuu saaka doonay inuu ku meel mariyo cod haddana markay taasi socon weeyey cod wuxuu u qaaday soo jeednimo in sidaa lagu codeeyo iyo in muddo la akhrista laga dhigo wuxuu tiina ka dhigay isla berrito iyadoo milkiskiina la keenin oo uu maqan yahay arrimaha degdega loo gelinayaa iyo maxaanku lahaa degdegan uu dabada ka wadaa halkaa waxaa ku jira wixii la qarinaya qurun baa ku jira wixii dooda golaha wakiiladu ay sifo sharciya kaga saareen ayaa hoos loogu qarinayaa inay halka ku jiraan shirguddoonku wuxuu ku waayi karaa xilkiisa haddii u hoggaansami waayo go-aanka goloweynaha wallaahi haddii kalifta imbiijmentka shirguddoonka la soo dhigay wallaahi magicii ilaahay baa ku lahay